kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa muuse xusho waxaad kusoo dhawaataan falanqaynta kulan ciyaareed xiise leh oo ka tirsan horyaalka Premier League. Arsenal ayaa marti qaadaysa kooxda Tottenham, kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska welibana derbiyada London ka mid a. Kulankan falanqayntiisa inta aanan daawadayaal u gudagelin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noogu dhufataan qaybta YouTube-ka, sidoo kalena aad noo share garaysaan waanad ku mahadsantihiin la socodkeena. Aynu ku bilownay kooxda Arsenal oo weeraryahankeeda Gabriel Jesus ayaa qalliin gelaya kadib dhaawac dhinaca jilibka oo ciyaaryahankan soo gaaray intii lagu guda jiray ciyaartii haddii ay la qaateen kooxda Manchester United ee koobka FA Cup-ka looga ciribtiray. Ricardo Calafiori ayaa isaguna soo kabasho ku jira kadib markii uu dhaawac muruqa ku seegay isla kulankaas, halka xidigaha kale ah Ethan Nwaneri, Bukayo Saka, Takahiro Tomiyasu iyo Ben White ay dhammaantood baaqi ku yihiin sii maqnaansho. Kooxda Tottenham weeraryahankeeda ninka la yidhaahdo Timo Werner ayaa la rajaynayaa inuu seego ciyaarta Arbacada ee derbiga kadib dhaawac dhinaca muruqa oo ciyaaryahankan soo gaaray ciyaartii ay kooxdu la qaadatay kooxda Tamworth. Goolhaye Fraser Forster ayaa dib ugu soo laabanaya kooxda kadib xanuun uga maqnaa ciyaartii lasoo dhaafay, halka Antonin Kinski oo labadii ciyaarood ee uu ciyaarayba shabaq nadiif ah ilaashaday ay suuragal tahay inuu ciyaartan kusii bilaaban doono, halkaasna uu howshiisa kasii wadanayo. Xaqiiqooyinka kulanka iyo iswajahidda labada kooxood haddii aanu eegno, kooxda Arsenal ayaa badisay 6 ka mid ah 8 kulan ee ugu dambeeyey ee ay ka hortagto kooxda Tottenham. Mar waa ay garab dhacday, marna waa laga badiyey. Waxa ay guuleysan karaan 3 ciyaarood oo isxiga oo waqooyiga London ciyaarihiisa derbiga ah markii ugu horeysay tan iyo markii ay 5 mar oo isxiga badiyeen sanadihii 1987 iyo 1989 intii u dhaxaysay. Kooxda Spurs ayaa badisay 2 ka mid ah 32 kulan oo ciyaaraha banaanka ay kula soo ciyaartay kooxda Arsenal ah. 12 waa ay garab dhacday, 18 marna waa laga badiyey. Midoodna 13 ciyaarood ee ugu dambeeyey kooxda Tottenham aanay adkaan tan iyo guushii 3-2 ahayd ee November 2010 ay kusoo gaartay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal ayaa eeganaysa in ay dhammaystirto Premier League 2 guulood oo isxiga markeedii 5aad taariikhda. Spurs ayaan ilaashan shabaq nadiif ah 25 ciyaarood oo gurigeeda meel ka baxsan ay kula ciyaartay kooxda Gunners tan iyo eber ciyaar ku dhammaatay November 1998, markaas oo goolhaye Spain Bardisen uu shabaqa ugu jiray kooxda Tottenham. Dhinaca Arsenal wararkeeda haddii aanu eegno, Arsenal lagama badin 12 kulan ee ugu dambeeyey ee gegida Emirates ay ku ciyaartay. 9 waa ay guuleysatay, 3na waa ay garab dhacday, waana kooxda keliya ee aan gurigeeda ku khasaarin ciyaaraha horyaalka sanad ciyaareedkan. Waxaa sidoo kale ay ilaashadeen shabaqooda 5 ciyaarood oo ciyaaraha gurigooda ah markii ugu horeysay tan iyo December 2013 ilaa February 2014. Kooxda Gunners ayaa laga dhaliyey 28 boqolkiiba goolasha ka dhashay 15 daqiiqo ee ciyaarta furitaankeeda ah. 5 gool oo ka mid ah 18 gool ee Arsenal laga dhaliyey ayaana xilligaas ka dhashay. Tottenham ayaa dhalisay 11 gool 15 daqiiqo ee ugu horeeya ciyaaraha horyaalka sanad ciyaareedkan, waana kooxda ugu dadaalka badan marka daqiiqadaha hore la eego. Mikel Arteta kooxdiisa ayaa rajo xoog leh laga qabaa in ay kaga wanaagsanaan doonto dhinaca dhaliska kooxda Tottenham. 25 gool ayay kooxaha kasoo horjeeda ay dhaliyeen 30 ciyaarood oo dhammaan tartamada ay ciyaareen xilli ciyaareedkan, waxaana ku jira 18 gool oo laga dhaliyey 19 ciyaarood ee ugu dambeeyey. Martin Odegaard, kabtanka kooxda, ayaa abuuray 10 fursadood kulanka FA Cup-ka ee Manchester United, waana ciyaaryahanka kaliya ee ka ciyaara Premier League ee dhammaan tartamada hal kulan ciyaareed sidan oo kale ka sameeyey. Dhanka Tottenham sheekooyinkeeda haddii aanu eegno, kooxda Tottenham ayaa guusha kaliya ee ay gaartay 8 ciyaarood ee ugu dambeeyey ay tahay markii ay 5-0 uga badisay kooxda kaalimaha hoose fadhisa ee Southampton. Markaas wixii ka dambeeyeyna 5 mar waa ay khasaartay Tottenham, 2na waa ay garab dhacday 8 ciyaarood ee ugu dambeeyey. Tan iyo bilowgii bisha December kaliya Leicester City iyo Southampton ayaa dhibco ka yar qaatay Tottenham oo 5 dhibcood shaqaysatay. Waxa ay ilaashadeen 2 ciyaarood oo shabaqooda nadiif ah dhammaan tartamada markii labaad kaliya sanad ciyaareedkan. Kooxda Spurs ayaa 15 dhibcood waxa ay ka hooseysaa halkii ay joogtay xilli ciyaareedkii hore waqtigan oo kale, balse waxa ay dhaliyeen goolal la siman kuwii ay xilligaas soo dhaliyeen. Sidoo kale waxaa laga dhaliyey
kaliya hal gool oo ka dheeri ah goolashii laga dhaliyay xilli ciyaareedkaas waqtigan oo kale. Horay u socodkooda kooxda Tottenham 101 kulan oo ciyaaraha heerka sare ah ma aanay gelin garabdhac eber iyo eber ah, waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee ugu dheereed ee taariikhda ay kooxay sidan oo kale ka samayso horyaalka Premier League. Manchester United ayaa 114 kulan oo intii u dhaxaysay May 1999 iyo May 2002 iyadoo sidaas oo kale samaysay. Kaliya Erling Haaland oo 14 gool dhaliyay ayaa uga badan dhaliska goolasha furitaanka ciyaarta, waxaana marka la fiiriyo Dominic Solanke uu yahay ciyaaryahanka labaad oo 11 isaguna ku dhaliyay daqiiqadaha hore tan iyo bilowga sanad ciyaareedkii lasoo dhaafay. Jan Kulusevski ayaa 8 gool dhaliyay dhammaan tartamada, waxaana uu la siman yahay intii uu dhaliyay xilli ciyaareedkii tegay oo dhan. Taasi waa falanqaynta kulan ciyaareedka xiisaha leh ee dhex maraya kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo ka dhici doona garoonka kooxda Arsenal ay ku ciyaarto. Kulankaas waxaa la ciyaari doonaa marka ay saacadu tahay 11 waqtiga geeska Afrika ee habeenimo. Haddaba ciyaaro kale ayaa jira. Newcastle oo soo dhaweynaysa Wolves marka ay saacadu tahay 10:15. Leicester City iyo Crystal Palace isla waqtigaas ayay ciyaari doonaan. Everton ayaa marti qaadi doonta kooxda Aston Villa marka ay saacadu tahay 10:30. Daawadayaal waad ku mahadsantihiin la socodkeena. Subscribe-ka noogu dhufta qaybta YouTube oo Muuse Xusho idinkaga tegaya. Nabadgelyo.